si badan ugu yimaadeen ama dad badan uga soo dalbadeen ama warbaahin terapeela wadanka dibadiisa iyo gudihiisa intuba ay u rabeen mar walba inay madaxweynaha waraysi ay ka qaadaan inuu mar walba ilaalinayay balantii uu nala galay bishii June toddobaadkii u horeeyay oo ahayd xaqiiqatan hal asbuuc kadib markii uu xukunka soo wareejiyay in madaxweyne aad iyo aad kaga mahadcelinaya sharaf ay tahay inaad xaqiiqatan balan noocaas oo kale ka soo dhalaashay oo aad xaqiiqatan aad ku suntanaatid dadka Soomaalida waxa leeyahay inta badan hadda bariyahan ballamay way iska adkaadeen anoo dareemay intaas in ay iska jireen cadaadisiyo iyo wax walba aad baan kaga mahadcelinaya arrintaas aad baan mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka madaxweyne magacayga waa Xaashi waxaan rabaa in barnaamijkan ku bilowno siyaasadda Soomaalida markii laga hadlayo qaabka dadku ay siyaasadda Soomaaliyeed ama siyaasiyiintu ay u fahansan yihiin waxaad moodaa inay tahay siyaasad ka duwan tan dunida oo dhan barnaamijkeena isagu mawaadiic badan taaba doona wax badan ka jawaabi doona iftiimina doona wax yaalo badan ummadda Soomaaliyeed ama ay isweydiinayaan ama ay isweydiinayaan waxaan rabaa horta marka horeysa aragtida Soomaalida qaarkood siyaasiyiinta ay ka qabaan siyaasadda waxa loo arkaa inay tahay khiyaano lugooyo balandaro boob hantiyeed yani isjilaafayn mid kale lugooyo been laga sheego oo iyadoo martay inaad aad u tirab badan bal waxaad ii sheegtaa su'aashada koobaad inay noqoto sidee ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u yaqaanaa siyaasadda waa maxay aragtidaas siyaasadda bismillaahir rahmaanir rahiim xaashi soo dhawow runtii aadan kaaga mahadcelinaya adiga iyo horfadhi halkan waxaan rabaa inaan ka salaam guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo daawanaysa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waa sax weeye marka ay timid usbuuc ka bacdi markii aan ka soo baxay villada oo tiri waxaan doonayaa inaan noqdo qofka ugu horeeya oo interview ka qaada ama waraysi ka qaada waa aqbalay maxaa yeelay inkastoo inta badan aysan fiicnayn inaad go'aan gaarto marka aad faraxsan tahay marka aad xanaaqsan tahay labadaba laakiin ballan waa ballantii waa qaaday in badan oo wariyaal ahna waa soo raadiyeen qaarkoodna waa ka xumaadeen laakiin waxa weeye amaanadu waa muhiim amaanadan waxa ugu horeeya ballanta iyo runta inaad halkan ku cadaysay in ballantaadii halkan ka fushay oo aan fulinay aad baan runtii ugu faraxsanahay tan labaad su'aashaada ah siyaasadda maxaan ka fahamsanahay waa run siyaasadda dadka Soomaaliyeed oo siyaasadda ku jira in badan waxay ka fahamsan yihiin siyaasadda inay tahay khiyaano iyo trick in la khiyaamo la iswareeriyo been la isu sheego balan aan lahayn la iswareeriyo ma aha siyaasaddu waxa weeye was aamin siyaasaddu waxa weeye xal doon siyaasaddu waxa weeye in laga wada shaqeeyo wixii suurtoobi kara waxa la yiraahdaa art of possibilities yalaada siyaasadda politics is art of possibilities laakiin Soomaalidu waa sax weeye waxay u qaataan art of deception in la khiyaamo oo qof walba qofku ka sixirowsan yahay oo qofka kale maxaan ku raada khiyaami karo ku khiyaamo taas waxay keentay marka is aamin darro weyn xitaa inta la dhaarto oo ummadda hortooda loogu dhaarto oo kitaab la maro hadduu xildhibaan yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu prime minister yahay hadduu wasiir yahayba iyo hadduu xil kala hayo kitaabka meesha looga tago oo tii ilaahay xitaa lagu axdi furo laakiin saan ku sheegay siyaasaddu waxa weeye waa xal doon la raadinayo wixii macquul ah possible ah depends on yaa loo adeegaya haddii ummad loo adeegayo ummadaasi wixii aad ka ballan qaaday waa halaabi karaan oo waxa laga yaabaa inaad ka gaabiso ballamadii laakiin wixii aad ballan qaaday waa weynka ahaa waa inaad fuliso waxyaabaha kale oo haddana iyadana saamaysa siyaasiyiinta waxa weeye ballamaa la iska galaa ballamadaasna halkaas yaa looga tagaa markii qofka ballanta marka qofka helo wuxuu u rabo waa ka gudbaa anu taas uma fahamsanin siyaasadda aniga waxaan u fahamsanahay waxa weeye waa ammaano waxa weeye marka aad siyaasad gasho oo aad tiraahdo ummad baan u adeegayaa waa ammaano lagu dhibtay ammaanadaas lagu dhibtayna inaad ilaaliso weeye oo afkaaga iyo qowlkaaga iyo ficilkaaga inuu isleeyahay hadda baryahan dambe waxaan arkaynaa
marka shalay maanta laga soo saaray madaxweynaha de ceeb ka weyn ma jirto qof weyn oo mas'uul oo da'adaas oo maxaan ku raahdaa sheegtan inuu PhD yahay oo haddana shalay maanta la iska horkeenayo oo asleeda war isaga mucaaradba isku filanba maxaad ka mucaaradaysaaba wuxuu diidanaa hadduu ogol yahay haddana waa isbedelaya waxaad leedahay siyaasadda dadka qaarkood soo garteen sabab laga picture ugu fiican waa macnaha waxa weeye isaga bacdama uu yahay de odagii Soomaaliyeed odagii ummadda aabihii ummadda uu yahay ilaa madaxweynuhu wuxuu la mid yahay aabihii qoysku la mid yahay marka haddii de odagii qoyska aan la garanaynin waxa uu aaminsan yahay iyo meesha uu ka jiro oo aanan prediction lagu sameyn karin haddee waxa weeye ilmuhu waa ku dayanayaan macnaheedu waxa weeye haddii madaxweynihii uu kala hadlo oo lagu barto inuu been sheegayo oo haddee isagaaba yiriba wuxuu yiri shalayna qof baan ahay maantana qof kale ahay birina qof kale noqon karaa macnaheedu waxa weeye waa macallin aan fiicnayn oo siyaasadeed weeye waa tahay mar dad saa u qeexday aqoonta iyo aragtida aad ka qabto siyaasadda oo runtii ereyga weyn uu yahay siyaasadda wixii suurtagal ah wixii khiyaana iyo wixii isjalaafayn iyo xambaara iyo hebel baan ligdima markaas waxaa soo hosgelaysaa khibrad oo halkaa khibrad baa ka dhalanaysa waxaan rabaa marka barnaamijkeena inaad ka soo bilowdo koritaankaagii iyo noloshaadii iyo dabcan ilaa iyo khibradaha aad leedahay bal ummadda Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qofba in buu hayaa dabeelay si rasmi ugu daabacan tahay oo laga yaabaa inay jirto laakiin dadka oo dhan Soomaalidu aad xuma akhrido xaqiiqatan bal arinta khibradda waxaad khibrad u leedahay marka siyaasadda ilaa waxay doonaysaa khibraddu waa laba qaybood weeye khibradda naftigeedu kaligeed ma taagnaan karto waa inay haysato niyad wanaag qofka mas'uulka ah waa sax saddex arrimood baa muhiim ah waxaa muhiim ah inuu khibrad leeyahay waa muhiim waaye oo qofkii de aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo iyo experience u leeyahay waxaa muhiim ah in uu good intention leeyahay ama niyadiisu fiican tahay oo waxa uu sameynayo daacad ka tahay tan saddexaadna waxa weeye waa karti hawshii lagu fuliyo uu qofku leeyahay marka laba qaybood aan kala qaadaya qaybtii aniga aan ku dhex jiray gacanta aan kula jiray siyaasad iyo shaqo la xiriirta siyaasadda iyo qayb korriimadeeda ah iyo environmentiga ku soo koray oo iyada nafteeda qayb ka noqonaysa qofka wuxuu yahay ama wuxuu noqon doono dhaqankiisa characterkiisa aniga hadda markaan ku sheegay khibradeydu waxa weeye 34 sano yaan u leeyahay dowladnimo iyo siyaasad waxaan arkayay siyaasiyiin inta kore aragta oo ahayd anigu markii aan prime minister ka noqday oo 2010 ka ahayd oo yiraahdo farmaajo wuxuu ka bilaabay siyaasadda 2010 kii ka bilaabay dad yaqaan ma aha 2010 kii marka anigu aan prime minister noqonayay siyaasad iyo shaqo dawladeed ba khibradeydu waxaan haystay 23 sano haye noocii marka 23 sano waaye waliba koritimaadii nooga bilow carruurnimadii nooga soo bilow halkaasaan jecel waaye anigu horta waxaan ku dhashay guri siyaasadeed yaan ku dhashay environment yaan ku soo koray guri siyaasadeed buu ahaa ma ogtahay environment aad ku soo korto wax badan baa noloshaada wax ka bedelaysaa haddaad ku soo korto dee family ganacsato oo bakhaaro iyo raashin la keenayo iyo alaab la kala gedinayo hadaad ku soo korto ama dukaan yaroo la iibinayo aabbaha leeya ku soo korto dee waxaa tahay ilmahaas yarka oo ku soo dhex koray waxaas la iibinayo oo maskaxdaada iyo systemkaaga iyo saa u fakaraysid wax badan waxa weeye waxaa ku jira ama qayb ka ah shaqadaas waalidka ay ku jiraan haddii waalidka uu yahay dad shaqeeyo oo shaqo u kala subax walba oo subax walba aada shaqa iyada naftigeeda waxa weeye kusoo koraysaayo work ethic yaad baranaysaa aabbaha aroortii kacayo oo shaqo tagayo iyo hooyadii wixii oo dhan sidaas oo kale siyaasaddu aniga aabbahay allah naxariisto 51 yaa waxaa loo xiray SYL wuxuu ahaa horseedka SYL dhalinyaradii SYL ku ahaa oo activistiyaasha ahaa oo shaqooyinka inta badan dhalinyarada qaban jirtay wixii SYL ay u baahato marka kadibna
gumaysti baa xiray markaa gumaystii talyaaniga xiray konton iyo kowdii ilaa 60kii waa xirnaa oo waxaa loo xiray mudaharaadyo iyo howlo badan ay ka shaqeynayeen isaga iyo dad kale oo dee SYL gobonimooyinkii qayb ka ahaa waxaa lagu xiray magaalada Kismaayo xamar bay ka tageen halkaas waxay u tageen mudaharaad inay abaabulaan dadka Soomaalida ah oo degan Kismaayo si loogu kaco talyaaniga ilaa xamar waa loo kacsan yahay marka waa in la faafiyo meel walba oo talyaani joogo in la soo dhaqdhaqaaqan gobonimooyinka ah inuu meel walba joogo marka dadkii la xiray iyo kamid ahaa dil toogasha lagu xukumay ka bacdi xabsi daa'im baa lagu xukumay markii dambe dee waa baqeen talyaanigu waxay yiraahdeen adduunka rogmaya haddii dadkaan dhibaato ku sameeyaan marka 10 sano yaa lagu xiray marka xorriyadda waxaa la helay oo Soomaaliya xorriyad heshay markii la soo daayay Soomaaliya xorriyaddeeda marka xabsiga muu dhamaystay ma dhamaysan waxaa soo deysay dowladda xorowday markii xorriyadda la qaatay hooyadeen naftigeedu iyadoo dadkii waxay ahayd SYL dahabka u iibinayo oo dhaqdhaqaaqa ku jiray oo gabdhaha ordayay oo maxaan ku raahdaa halganka qayb weyn ka ahaa ee ka mid ahayd marka markii anigu aan dhashay siyaasaddii waa socotaa SYL waxa weeye waa xisbiye kala jiray saasaan kusoo koray horta anigu kadib de markaan si fiican u caqliyeystay oo xilligii kacaanka ay yimidna de kacaanku dadka dhan buu abaabulayay oo waxa weeye waxa loo abaabulayay dadka inay u shaqeeyaan oo iska wax u qabso wax la yiraahdo iyo ururada dhalinyarada jiray iyo ubaxa kacaanka jiray iyo waxaasaan qayb ka ahayn soo ma garan kadibna markii aan high schoolka ka baxay waxaan u shaqo tagay wasaaradda arrimaha dibadda waan shaqo ka bilaabay markaan shaqada ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda de wasaaraddu weeye waa sax siyaasad shaqo kuma laha laakiin waxaa jira meelo siyaasaddu ay ka soo galayso shaqadayda ka soo galayso مثلا xafiiska arkiibiyada ka shaqeynayay sirta ah marka waxyaabaha sirta ah oo haday noqoto dawladaha shisheeye iyo haday noqoto mucaaradka iyo haday noqoto siyaasadda guud iyo kulli meesha lagu keedinayo way ilaa wasaaraddu waxay ku lahayd koobi wax alla wixii dhaqdhaqaaqa oo dalka ka jira مثلا anu waxaan noqday 84 ninkii ugu dhanyaraa oo qaadayay minutka golaha nabadgelyada dalka guddiga amniga qaranka minutka waa wax la qoro marka shilin kulka lagu jiro waxa weeye waa siyaasad markaas waxa laga hadlayaa siyaasadda dalka laga hadlayaa waxa laga hadlayaa amniga dalka xaaladaha guud ee dalka yaa laga hadlayaa marka 84 oo dhan waxaan hawsheedu ahayd oo qayb ahaan aan uga shaqeynayay 5 wasaaradood bay ahaayeen saan xasuusto waa wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda maxaan ku yiraahdaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida مثلا ciidanka xooga oo cali smatarna wasiirka Allah u xariistay wasiirka gaashaandhigga u ahaa isla markaasna taliyaha ciidanka xooga dalka oo Soomaaliyeed u ahaa iyo taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda